wadayaal waqti habeenkii xalay tahay labadii habeennimo iyo waliba jarjar waxa weerar loo geystay guriga wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland Maxamuud Sheekh Cabdilaahi gurigiisana waa tan hadda daawadayaal sidaad arkaysaan aan ku sugannahay oo aanu booqanay goobta xabadda dableyda wasiirka soo weerartay aan ilaa hadda la garanayni ay guriga kaga dhufteen waad arkaysaan dhinacan bal hadda intayna gudaha iyo khasaaraha gaaray aynaan eegin bal goobaha kale xabaddu ay dhacday inaynu eegno wadayaal sida idin muuqata aad arki kartaan guriga deerkiisana weedi ka arkaya oo dhinaca shisha waxaana jecelahay bal inaan guriga imika gudaha u galno oo aynu eegno bal khasaariya arrimahaas daawadayaal halka hadda idin muuqata waa goobta guriga gudihiisa aan soo galnay sidaad arkaysaan halkaas lafteeda xabad ayaa guriga kaga dhacday sidaad ku soo arkayseen goobihii hore ee deerkaba daawadayaal sidaad hadda idhihiinaba ku aragtaan albaabka guriga oo dhinaca shisho ee laga galo waxa xabaddu ku dhacday goobta aad arkaysaan goobta kale iyo goobtan oo saddex meelood ah oo sida idinka idin muuqatay aad idhihiina ku arkaysaan goobo kamida ay goosatay xabaddu waxana xabadda halkaasi dabcan sida la ii sheegay ay gudaha u gashay guriga daawadayaal gudihii aqalka ayaynu hadda soo galnay waxaana idin muuqata xabaddii albaabka ku soo dhacday ee aan imika ka waramayay inay gidaarkaas ku dhacday daawadayaal hadda barbarkayga waxa taagan xogayaha gaarka ee wasiirka oo xalayna joogay oo goobta ku sugnaa aqalka in bal sida wax u dhaceen nooga war horta xalay abaaro labadii iyo rubuc markay ahayd saacadu habeenimo anagoo nabad ku seexanay oo guriga iska hudna ayaa waxaan ku war helay goor aan isiri ilaa 10 minute bay socotay rasaastu iyadoo rasaas naga dul dhacayso oo markaa rasaas aan kala joogsi lahayn markaas dibadda soo yaacnay wax weeyaan ilaalada iyaduna iyagoo ay ku ridayaan markaan dibadda ugu soo baxay halkan waxa gaariba halkaas taagnaa rasaasu isaguna soo ridayay aan markaa wax huba ma aan wadanin dib ilaalada ay ku tiri dib uga baan uga noqday abaar markay sidii u socotay way yaaceen nimankii way yaaceen oo ilaalada halkaas banaanka ugu baxday markaas ay yaaceen markaa imisay haayeen bay ku tirada sheegi karta kullay horta wax tiro oo imika sheegi karna ma jiro dhulku mugdi buu ahaayo waqti de la arki karo ma yahayn de iskana argagax bay ahayd runtii marka la yiraahdo waqtigaasi adigoo hurdada marka xaalada noocaas ku qabsato marka laga imaadeen xabaddu gidaarada iyo arrimahan ku dhacday wax khasaare ah oo arinta ka dhashay oo ma jira may wax khasaare oo arinta ka dhashay ma jiro laakiin waxa weeyaan inta aad aragteen idinku indhiina ku aragteen gidaarada iyo intaas unba xogaya arintaas maxaa loo aanin karaa ilaa imika horta anagu waxaan u aanin karno ama aanu nisbayn karno oran karna arintaasi waxaas la xiriirda ma jirto laakiin kullay ciidamada amniga iyo kuwa booliska iyo taliyayaasha iyo dhamaantood way yimaadeen guriga qolfiyadii rasaastii ka dhacday qorigana way gureen iyaga arinta ku raad joogo iyagu baynu deynaa ka hor dhicmayno geesta kale arintani waxaan wax ka weydiiyay wasiiru dawlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye waxaan wasiiru dawluhu ii sheegay in arintani hadda baadhitaan ku jirto cidna ay u hayaan sida uu sheegay askiiska sortida baadhis buu ku jiraa weerar toos oo la yiri wasiirka la weerarayna ma hayo hase yeeshee gurigiisa agtiisa in xabada guriga ay gaadheen waa la ii sheegay ka hor dhici maayo dad waa la hayaa waana la baarayaa warbixinteedana gadaal baa ka heli doontaan haddii la yiraahdo